Assalamu alaikum guys, ku soo dhawaada casharadeen imtixaanaha aan uga barateen haadahan oo kale isbuuc walba inaan idin soo gudbino. Casharkeena maanta waxa uu hadlaynaa mishiinkan aad ku taqaaniin ee loo yaqaan water bus. Water bus maxaa la lahaa? Water bus waxaa la lahaa waa mid ka mid ah mishiinada loo isticmaalo shaybaarka dhex yaalo kaasoo lagu kululeeyo wax walba oo biyo ah. Wuxuu wuxuu ku kululeynaa ilaa digriga aad u baahan tahay. Biyahaas aad ku kululeysataa waxa u isticmaali kartaa waxyaabaha experimentiskaas aad u baahan tahay. Marka ujeedooyinka loo isticmaalo maxay tahay? Ujeedooyinka loo isticmaalo waxaa kamid ah in biyo lagu kululeysto, biyahaas markii lagu kululeeyo oo waqti badan biyahaas uu ku kululeeyo ilaa digri aad u baahan tahay. Haddaa u baahan tahay 100 degree ku kululeynaa, haddaa u baahan tahay more than ku kululeynaa ilaa 130 ku gaarsiinaa. Biyahaas ku karkarina. Biyahaas markuu ku karkariyo biyo maxaa loo isticmaalaa marka ay karkariyo? Biyo waxaa loo isticmaalaa biyaha iyo mashiinka waa kana shaashada kaaga muuqdo waxaa loo isticmaalaa mar alla marka urine analysis baarisid. Hadda waxaa isticmaalnaa strip oo caadi ah, isticmaal normal strip baalka usha dheer isticmaalnaa. Color change ku xisaabtamayna isla waxaa waxaa la isticmaali jiray urine analysis la soo qaadanaa waxaa la gelinaa waxaa lagu shubaa bendic reagent sida sokorta kale marka la baarayo. Bendic reagent waxaa ku shubay urine analysis tube ka ku shubtid kadib color change ga rabaa inaa ogaado. Waxaa rabaa color change waxaa ku ogaan karaa degree oo biyo kulul inaa dhex geliyo. Marka dhex geliyo kadib colorkaas bedelaado colorkaas bedelo waxaa dhacay color change markuu imaado waxaa leeyahay from colorka oo markaas yato another color isku bedelo waxaa leeyahay waxa soo qabaa. Marka mashiinkan biyo ay kululeeyo principle-kii shaqada oo qabto waxay tahay operation-kiisa biyo ay kululeena biyaas bisa kululeena waa waxa biyo lagu kululeeyo oo biyaha shaybaarka yaala. Biyaas barboos badan loo isticmaalaa. Hadda u baahan oo kale aniga inaan histopathological lab ka shaqeynayo oo kale biyahaas oo kale u baahanahay oo baalkan oo igu jiro water bath-kiga ileen biyahan kululka maxay iga anfacaa xaaladaas wuxuu iga anfacaa inaan aniga aan markaan diyaariyo slide-ka aan ku diyaariyo baalka aan section soo mariyay aan soo jaray cadka aan soo gooyo oo section-ka aan soo gudbiyay microtom oo soo jaray inaan soo qaado aan meesha kor saaro si aan ugu tadbiid gareeyo aan ugu sugo slide-kayga iyo baalka layer-ka aan jaray. Shaqadaas oo qabanaa marka baalkan very important way wuxuu u baahan yahay la keer gareeyo hadaan keer garin aadan ilaalin digrigiisna aadan ka taxadirin waxa imaana inuu heerkulka doo ka bato oo naftirkiisa expansion oo kugu sameeyo inuu biyo badbado biyahaas hadoo badbado oo zaid u badbado biyo dhamaanayo biyina evaporation ku dhamaada waxa imaana biyo in aad dhibaato ku keenaan hadii dhibaato ku keenaan biyahaas wax kuma tarayso oo meeshii ka baabiinayaan. Haddii biyo ay dhamaadaan baalkii oo biyo ka dhamaadaan kaligiisa iska qarxi karo. Haddii biyo meesha ka buuxan waa kaya marka biyahaas mar walba isticmaalayso waxa sameynaya waa boring gareyn waa daadine biyo fresh ku shubay. Waan u jeedaa baal yar oo beer ku dhex jirto beertaas waxay ka saacidee inay kululeyso biyo kululeysa biyo waxay siinay temperature siinay. Mar walba marka waxa laga rabaa markaad isticmaashid inaad dhaqdid aad nadiifisid si aad u taxadirtid waxyaabaha experimentiska ka dambe aad isticmaali doontid inuusan dhibaatooyin ku keeno. Haddii experiment walba aad isticmaalaysid aad tiraahdo waxa uu isticmaalaa oo baalkan la leeyahay water bath bacteriadaas contaminated ka ah meesha gudbaayo haddii bacteria contaminated meesha soo gudbaan dhibaatooyin badan ku keena. Principle ahaan wuxuu ka dhow yahay autoclave laakiin wuxuu kala duwan yahay digriga. Autoclave digrigiisa 120 degree u gaara laakiin waxa raacsan pressure oo cadaadis oo 15 gaarayo raacsan kan laakiin cadaadis ma laha kan biyo oo flexible way oo furan way biyaas waa kulul yihiin waa biyo baas dabka la saaro oo wadaanjinaya camal way. Marka waxyaabo badan loo isticmaalaa physiological temperature kan wuxuu naga saacidaa waxyaalo fara badan oo jirkeena ah sida algae oo kale marka rab inaan baaro fungi bacteria kale tasbiida ku sameynay ama heat over 60 degree oo kale 30 daqiiqo sugo ku leeyahay. Example waxa ku shaqeynaysa waxa baaraysa baalkan loo yaqaan alkaline phosphate baaraysa biochemistry wuxuu ku leeyahay room temperature 30 daqiiqo ku hay 32 degree laga rabaa 32 degree room temperature ka hadoo ahayn IC room aan ku jirtid meel qabow ah waxa u baahan tahay inaad isticmaasho baalkan u baahan tahay baalkan waxa ku shubay biyo waxa dhex gelinay baalka korontada ku xireen 32 degree markuu gaaro waxa dhex gelinay tube-ka dhex gelinay tube-ka oo ku dhex jiro isla markaa waxa ku soo muuqanayo inuu tube-ka 30 daqiiqo kadib aad ka bixisid reaction oo sameeyna reaction-ka waxa naqaana chemicals-ka wax walba bedelay chemical daam qashid waxa loo yaqaan temperature hadoo meesha temperature imaado oo chemical yaalo waxa isbedeli doona temperature-ka isbedela laakiin hadoo temperature meesha oolin
oo chemical yaal temperature chemical ka isbedelaa sida daawooyinka kamid ah daawooyinka hadii meel kale lagu kaadiyo waxa imaanaya inay isbedelaan oo degree-gooda hoos u dhaco waana taqaan xisaab lagu cabiraa 10% watt per volume ama xisaabaadkaas lagu cabiraa xisaabaad loogu talagalay jiro oo chemical lagu cabiro chemical xisaabaadka lagu cabiro khaldamayo waxa imaanaya marka concentration ka isbedelo concentration ka isbedelo temperature ka concentration bedeli kara concentration temperature bedelo khalad kasto ku imaadana way ku saameeyaan testi ku saameeyana marka hadaad u baahan tahay inaad isticmaasho water pass baalkaas waaye biyaha mar walba laga bedelaa saas loogu taxadiraa waa la ilaaliyaa qaabkaas loo isticmaalaa water pass kaas laha degree-ga meel laga dheereeyo leeyahay email laga gaabiyo meesha laga dheereeyo meesha laga gaabiyo ka dheereenay waxaan iska ilaalinay adoo gacantaada gloves ku jira ama mara aadan wadan inaad isticmaashid haddii aad isticmaasho adoo gacantaada mara ku jirin ama mara wadanin ama gloves wadanin waxa ku soo gudbay kulalka oo meesha yaala hadoo biyaha kulal korka u soo gudbo waxayna qanay korkaaga inuu gubto oo problem ku soo gaaro soo problem ku soo gaarin waxaad aad isaga ilaalinay marka baalkan mashiinkan inaad isticmaalaysid iyo jirkaaga inuu gaaro mashiinkan standard oo United Nations ka dejisay way in laboratory-yaasha adduunka laga helo marka general safety-ga ka fikir nabadgelyada hadda nabadgelyada ilaalin problem fara badan ku soo wajahato problem badan ku soo wajahana dhibaato aad qaas ku ah naqani marka dhibaatada soosan aad mid qaas ku ah naqanin waxaad ka taxadirtaa nabadgelyada ilaalin marka baalkan waxa waay water pass saas loo isticmaalaa qaybo fara badan oo leeyahay mid yar iyo mid weyn iyo mid dhexdhexaad oo leeyahay dibadna midka aad haysta isticmaale gloves-kan loogu talagalay waa leeyahay gloves-ka normalka caadiga waa dilaaci karaa kaasna dabka waa qabanaa dabka qabto waa kugu dhalaali karaa marka si aad noo dhiirigelisaan aan mawduucdan ka sii badan noo soo gelino fadlan isku day inaad videogan haddaad aragtid shay barista share gareysid asxaabtaada laabka barato u share gareysid haddaad kanaalkayga ku cusub tahayna fadlan subscribe iyo saar like-na ka tagin mawduuc asleeda ku qosay comment-ka noogu reeb waana maasantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh